ciidamada nabadgelyada wadooyinka ee Somaliland ayaa si rasmi ah waxay u bilaabeen howlgallo ay ku qabqabanayaan gaadiidka basaska ee aan fulinin baaqi hore ay u soo jeedisay wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Somaliland ee ku aadanaa dhimista xawaaraha gawaadhida ee dadweynaha qaada ee u kala baxa gobollada kala duwan ee Somaliland gaar ahaan basaska waxaana ciidamada oo kaashanaya mas'uuliyiinta wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Somaliland waxay ka fuliyeen kantaroolada magaalada Hargeysa ee bariga iyo galbeedka taliyaha guud ee ciidamada nabadgelyada wadooyinka ee Somaliland Maxamed Cige iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidamadaasi ayaa waxay faahfaahin ka bixiyeen howlgalladan isaaka ay bilaabeen anagu ciidanka bilis ahaan waxaanu fuliyeynaa amarkii maamirta dawladda ka soo baxay shirkadaha bacadka wadaya shirkadaha muxuu dadweynaha ee hore loo cilaamiyay ha ka daayaan oo ha qaataan wixii sharci ah booyadaha oo iyaguna u dambeeya iska rogooyinka anna waxaan leenahay wixii shuruucda tan sharciga khilaafa waanu qaban doonaa waxaan kaloon sheegaynaa oo dadka u cilaaminaynaa baabuurta jaadka iyo booyadaha iska rogooyinka kuwaasna waxa loo qabtay 60 maalmood 60 maalmood wixii ka dambeeya haday soo qaadan waayaan wixii sharcigu waafsan laga qaadi doonaa hadii la yiraahdo waxa aan dadweynaha u sheegaya haddii arintaasi ay khalkhal galiyaan darawaliintu qalabka haddii ay khalkhal galiyaan inta laba sharci laga qaado waxaanu kula shaqeynaynaa wasaaradda ay qasabna tahay inaan kula shaqeyno siyaasadeeda iyo hawlaheeda waxaan u soo baxnay si aan u dhimi lahayn si aan uga jeegaran lahayn xawaaraha gaadiidka cidda qaadatay sida uu isticmaalaan ayaan Cabdicasiis Maxamed agaasimaha waaxda buugaagta iyo liisamada iyo agaasimaha waaxda gaadiidka ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Somaliland ayaa iyaguna faahfaahin ka bixiyay howlgalladani ay saaka bilaabeen anta waxaan fulineynaa waxaan jagaraynaa inay amaradii fuleen in lagu wada xiray gaadiidkii shirkadaha kala duwan ee rakaabka qaada ee wadanka waxaana la hubinayaa gaadiidka iska furay gaadiidka aan maxaa la yiraahdaa aan wali isku xidhin iyo kuwa iska furay labadaba waxayna mutaysan doonaan ganaax waayo waqtiga la siiyay oo ku sinaa muddo maxaa la yiraahdaa 3 bilood sidoo kale tani waxay uun daba socotaa waxa weeyaan sidii loo yareyn lahaa shilalka khasaaraha ba'an geysta ee ka dhaca dalka sida saaka ku arkaysaan shaqadu way socotaa Boormana way ka socotaa Hargeysa way ka socotaa shirkadii muddadii aanu TV-ga kala hadlaynay aanu waraaqaha xarumahooga geenaynay heshiiskii aan gelin amba qalabka ka wareegisay maanta waxay ciidanka taraafigu nabadgelyada wadooyinku ay ka qaadayaan talaabo sharciga waafaqsan dadweynaha rakaabka ah ee saarnaa baabuurta saaka howlgallada lagu fuliyay iyo qaar ka mid ah darawallada basaska ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay nidaamka noocan ah ee lagu dhimayo socodka xawaaraha Star waa shirkadii ugu horeysay ee bilowdo amarka dawladda qaadata waana hididiilo ay dawladdan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu soo kordhiyay way waana uu ku maadsiyay in xarumaha in ay xafiisyada wakiiladu leeyihiin ajansiyadu inay ku soo ay ugu yimaadaan oo ay ku kontroolaan laakiin maaha in wadooyinka dadkoo maraya lagu xabis lagu hor joogsado saacadana lagu hayo waayo dadku shaqooyin bay leeyihiin ka duwan qaabkan in wadooyinka la isu taaga dadka maaha waa muhiimad weyn oo dad badan baa ku dhintay shilal baabuur oo aad u fara badan inta gobollada baabuurta u kala baxdo dhan marka haddaba waa wax aad loogu baahan yahay waayo waxaa jirta gawaadhi ku socota xawl sida kuwa qaadka qaada sida kuwa booyadahan waaweyn ee shidaalka marka in la xadido oo shilka la yareeyo muhiimadeedu aad bay macnaha aan u siinaynaa